بسم الله الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيام هذا الأنسكله عليه نصر تقلي كلن كان هذا هو كلن كان حقي ما أنت هذا محن إذن ولا ليال markaad i aragtaan arrin cajiib ah baan idin wadaa. dhegeysi wacan bilaaw ilaa iyo dhammaad. walaalihiinna gaarsiiya, baqayl ha noqonina, laa'igtan saara insha allah. qisadan waxa weeyaan qisasu israa'iiliya weeyaan, reer bani israa'iil ayaa ka dhacday. nabi ciise calayhi salaam ayaa safar galay. nabilaahi ciise markii nin kale oo yahuudi ah ayaa isagana jiray oo meesha nabilaahi ciise u socday ayuu u socdaa. safarkan waxaa fiican walaalayaal markii la safrayo in la isku lagu darsado. haddii isku meel loo socdo in la isku lagu darsado ayaa fiican. war heed xaggee u socota meel hebel, ani meel hebel aan u socdaay, ma isku lagu darsana waaye. nabi ciise markuu wuxuu wataa hal khubso wataa ama hal roodi. ninkan yahuudigana wuxuu wataa walaalayaal laba khubso wataa. طيب waxay ku heshiiyeen marka saddexda khubs in la wadaago maadaama safarkii uu ka dhaxeeyo. ninka yahuudiga ahna uu ku qancay marka hore, wuxuu yiri waaye raali aan ka ahay. labadii khubs iyo nabilaahi ciise halkiisa khubs ayaa la isku darsaday. marka safarkii ayaa bilaabmay. safarkii ayaa wuxuu socdeen duhurkii markii la gaaro walaalayaal oo cadceedii ay kululaatay ayaa meel la degay. nabi ciise wuxuu yiri bal meeshaan deji si aan qoraxda kuleelkeeda wax yar aan ugu yarnasan. nabi ciise waa salaad badnaa marka, aad iyo aad buu u salaad badnaa. salaadiisa ayuu iska galay walaalayaal. salaadii intuu ku jiray ayaa ninkan yahuudiga meesha fadhiya ilaa salaad ma dukade kane waxa u yimid shaydaan u yimid. markaas wuxuu ku yiri warheede waxaan ku weydiini ninkan salaada ku jiro meeqa khubis uu wataa? hal khubis. adigana meeqa siitaa? laba. wuxuu yiri hal khubis ka sii tuur adiga hadda, hal khubis cun, maxaa yeelay hal iyo hal isku soo haraysa, waana cadaalad. laakiin ninkan wuxuu rabaa inuu labadaada kula wadaago, wax suurtagal ah maaha. marka wuxuu yiri baasha baraja noqotee hal iyo hal un ha isku soo haraane, adiga hal hadda kasii tuur. maanta dhammaan waa soo socotay, gaajo xun waa jirtaa mugtahay, hal horta hadda kasii tuur. ninkii yahuudiga nabilaahi ciise intuu salaada ku jira hal xabo kasii tuuray, maxaa isku soo haray? labo. nabi ciise salaad markuu ka baxay wuxuu yiri warheede aw ninkii meeshaan ahaa yahuudiga, war yahuudiga noo keen khubustii noo keen, maanta dhammaan waa gaajoonay, waa daalneen. ninkii yahuudiga ahaa khubustii oo keenay. nabi ciise wuxuu arkay laba khubus bisal. wuxuu yiri aw midii saddexaad? wuxuu yiri misax ma jirin, laba un baan sidan. wuxuu yiri waxaas ma jiraan niyow, maal cadeey ayaad indhaha farahna gelinaysaa ya. saddexaan wadan markaan soo bixin waan ogeyn laba adiga iska lahaay, halna aniga iska lahaay, soo waxa garat maaha. saddexaan sidanee halkii saddexaad meeday? wuxuu yiri wallaahi saddex ma sidanin, laba un baan sidan. haddii ma dood un baa labadi. dadka safar waaye, waa laga fiican in la doodo Soomaa in hadalka la isku tuuro. nabi ciise wuxuu yiri waaye haddii ba saddex aan wadani waa okay. wixii la cunay safarkii laga sii wad marka labada xab ayaa la cunay. say u socdeen walaalahay. nabilaahi ciise wuxuu lahaa mucjisooyin oo ilaahay uu siiyay subxaanahu wa tacaala. dadka barasada ah oo baraska qaba ayuu intuu gacanta maray jirkii, macnaha jirkiisa barasada intay ka baxda ayaa jirkiisa caadi kusoo noqon jiray. baraska ayuu daaweyn jiray. qofkii indhaha intuu saan ugu salaaxa indhihi u soo laaban jiray. waxyaalaha nool, waxyaalaha dhintay ayuu nooleyn jiray. طيب nin waxay soo mareen marka indhool ah. nabi ciise indhaha ayuu intuu saan yiri uu masaxay, indhihi u soo laabtay. ninka yahuudiga waa u jeedaa bismillah. ninka yahuudiga uu indhaha taagay wuxuu yiri subxaanallah, war ilaaha wuxuu yiri wiligay mucjiso noocan oo kaleeta wiligay maana arag. wuxuu yiri nabilaahi ciise ilaahaygi mucjisadan ku tusay ayaan kuugu dhaariyee xabadii saddexaad yaa cunay. wallaahi bilaahi ma cuno yiraan, laba un baan sidanaba.
waxaan saddexda sheegays maxaa ahayd fantalaqahum waa tageen marka dana safarkaa la iska sii watay waxay soo mareen marka walaalayaal meel webi oo afka haya oo buuxo meel la marana aysan jirin doonna ma laha markabna ma laha see lagu mara marka dhinaca kalean loo socdaa nabi ciise marka wuxuu sameeyey ninkii intuu gacanta qabtay ayuu webigii dhexdiisa dhex taraarsiiyey oo dhex marsiiyey isagoo u jeeda weeyaa uga waday gacantuu qabtay webigii biyihii ayuu dhex mariyey isagoon wax dhibaato aan soo gaarin ayaa dhinaca kale looga gudbay ninkii dhinaca kale markii la geeyey ayaa wuxuu yidhi bismillah wuxuu yidhi mucjisidan oo kale weligay inta adduunka aan joogay noloshayda mana arag buu yidhi nabi ciise wuxuu yidhi ilaahayga mucjisidan ku tusay ayaan kuugu dhaariyey xabadii saddexdii cun wallaahi ani ma cunno yidhi maba wadanuu yidhi laba bisaan wadaniba u fiirsa axibata fillah ninkan yahuudiga ah waa yahuudi wax qoraaya ma laha yaa sharci celinaya ma laha fantalaqahum waa laga sii socda haddana axibati fillah nabi ciise asiga maba isdhibaayo ayib walaalayaal sidii loo socday nabi ciise wuxuu sameeyey ugaadh ayuu dilay markuu dilay ugaadhii hilibkeeda intuu jarjaray ayuu wuxuu yidhi ilaahay idinkiisa ku kacuu yidhi waa hilibkii neefkii hadda la dilay ugaadhii hadda la dilay oo hilibkeeda ninkii yahuudiga waa fiirinaya neefka markii lasoo qabanaya oo la dilaya ugaadhii waa la socdaa markii hilibkeeda la jarjaray wuu la socdaa nabi ciise wuxuu yidhi hilibkii intuu isu keenay ayuu wuxuu yidhi ilaahay idinkiisa kusoo noolaa mar kale ugaadhii hadda la dilay ayaa intay dhaqdhaqaaqday baalal macnaha intay yeelatay hilibkii wixii intay soo baneen hilibkii intuu fulmay maqaarkii uu fulmay waaba taas waa ordaysaa ninkii yahuudiga ahay afkuu qabsaday waa yaab wuxuu yidhi mucjisidan oo kale tan waa mid ugu daran weligay ima soo marnoyn mucjisa nooca oo kaleeta wax dhintay oo haddana lasoo nooleynaya wuxuu yidhi ilaahayga mucjisidan ku tusi ayaan kugu dhaariyey xabadii saddexdii cun wallaahi ma cunno yidhi wallaahi ma wasidino laba xabasaan wadanaba yaa allah u fiirsa walaalayaal binu-aadanka madax adag fantalaqahum waa laga sii socday waxay socdaanba axibati fillah waxay meel haddana nabi ciise waxay degeen meel haddana meel markay degeen nabi ciise wuxuu sameeyey marka carra ayuu saddex carra ayuu tuuray soo ma naqaana tuurista carrada ilmaha yar markay ciyaarayaan carraa la tuuraa oo sida mudul oo kalaa laga dhigaa buur oo kalaa laga dhigaa marka carra intuu saan u tuuray saddex carro saan u tuuray nabillaahi ciise markaasaa wuxuu yidhi saddexdiinan carro oo la tuuray waxaad noqotaan dahab noqdo yidhi saddexdii buurood ayaa waxay isku bedeleen walaalayaal dahab ayay isku bedeleen ninkii yahuudiga waa fiirinaya wuxuu yidhi bismillah carro le oo dahab isku bedelaya weligay ma arkin yidhi markaasaa wuxuu yidhi yahuudi oo dhegeysa halkan adiga iskale halkan buur la kac adiga halkan labaadna aniga iskale halkan saddexaadna waxaa iskale ninkii xabadii saddexaad cuni ninkii halkii khubustii saddexaad ninkii cunaa iskale wallaahi anaa cuno yidhi wallaahi inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun maanta oo dhan axibati fillah markii intaasoo mucjiso la tusahay muusan dhehaynin anaa cunay ma qirinayn haddoo adduunyo timid markay adduunyo la helay oo la yidhi halkan waxaa iskale midii ninkii xabadii saddexaad cunay ayaa wuxuu yidhi damacaa soo galee damaca adduunyaha ku dhacay wuxuu yidhi anaa cunay wallaahi uu dhaartay wuxuu yidhi anigaa cunay halkii xaba anigu igu tagay marka halisii halkan saddex markaasaa wuxuu yidhi muxuu rabaa marka walaalayaal wuxuu rabaa labadan inuu isku darsado rabaa adduunya jaceylka xubu dunya wa karaahatu lmowt sooma ahayn rasuulka sal alla ly slam xadiidkiisa waxaan idinkaga cabsanayaa adduunyo jeceyl iyo geeri naceeb labadaasaan idinkaga cabsana uu yidhi nabiga sal alla ly slam inaad geeri nacbanaataan adduunya aad ka daba orodaan oo daba dhilif aad u noqotaan ninkan balfir adi nebi ciise oo nebi ilaaha la socda oo qiimo badan uma jeedo waxaasoo dhan
mucjisooyinkan la tusa waxaasoo dhan ina sarcaad indhaha sarcaada maxaa la jira indhaha daha lagaga saaray waxa uu u jeeda kaliya waxa furaya oo xiraya ninkan waa adduunyo bas adduunyo markuu arka radiya wa in lam yuctiya sakhata adduunyo haddii la siiya wuu faraxsan haddii adduunyo uu waaya waa kaas wuu ilmeynaya murug dhibaato dhib ay ugu dhacay cabaadkiisa lama joogi karo nabi ciise wuxuu yidhi saddexdaba qaada bale ha kuu dhacdeen yaa safar la geli jira waxaan wuxuu yidhi adduunyo jeceyl soo ma aha reer adduunyaa tahay aniga reer aakharaan ahay soo waxa gadmaha nin aakhare iyo u shaqaysana ayaan ahay adduunyo ani qalbigay kuma weyna adigay kugu weyn soo maha saddexdan dahab saddexdan qaada mideeda xataa ku darsa kaa qaado yidhi laakiin kulankeena halkan uu ku egyahay ma wada socon kari mayna ma sii soconayna waxaa weeyaan meeshaan kusoo idlaaday safarkanagi nin lala socon karo ma tihid nugu kala wad yiri meesha nugu kala wad nabi ciise meeshuu ugu tagay ninkii nabi ciise inuu ka tago waaba rabay maxaa yeelay nabi ciise ma rabay ninkan wuxuu rabaa adduunyo rabaa mugtay dahabkan haddii looga tagiba wuxuu yiri kac iska tago yaadi ani dahabkan rabaa dahabkii walaalayaal waa saddex buurood hadda ma qaadi kara farxad meel uu waa kala babatay ninkii aad buu u faraxsan saddexdii buurood isaga iskale maanta wuu ku dulmeeraysan isagoo ku dulmeeraysan walaalayaal oo marna dhinacan ka shuminay marna dhinacan ka shuminay oo faraxsan ayaa saddex nin iyagana safar ku jiray ayaa meesha soo maray markaas waxay arkeen ninkaanoo saddex buurood oo dahab ah ku dulmeeraysanay markaas waxay dhaheen warheede waa u tashteen waxay dhaheen war ninkan waa keligiisee wax ciidan iyo waxna ma watee maan dilna ninkan saddexdan buurood saddex qofaan nin kastaba mu buur la kaca nimankii waa isku qanciyaan ninkii ay dileen dhag waa ninkii nabiyullaahi ciise la socday oo saddexda buurood la siiyey daqiiqa kama soo wareegin ninka waa la dilay yaa allah u fiirsa muusan calfan xataa saddexda buurood waa la dilay saddexda nin aan soo hartay saddex nin waxay dhaheen mid ka mid ah magaalada u dhaweyd markaas magaalada u daran waxay dhaheen warniyo waa gaajaysanahee magaalada cunto nooga doon magaaladu aaday intuu magaaladu ku maqan yahay shaydaan wuxuu u yimid labadani waxay dhaheen warheede wax ma idin sheegaa ninkaas intuu maqan yahay markuu ninkaas saddexdan buurood idinkay idinku fiican yihiin ninkaas markuu cuntada idin keena dila kadibna saddexdan buurood idinka qaata wuu ku qanciyay shaydaan marka ninkii kale haddana u tagay oo magaalada oo cuntada doona oo cuntada ku maqnaa wuxuu yidhi warheede wax ma kuu sheegaa labadaas saaxiibadaada ah ka takhlus oo dil cuntada u sumeey cuntada sun ugu dar adiga marka ha kuu soo haraa marka saddexda buurood adiga ha kuu soo haraa u fiirsa meeshaan wax ka dhici doona walaalayaal ninkaasna wuxuu rabaa inuu nimankan qayaana nimankaana waxay rabaa inay ninkaas qayaanaan waa la isku baada maqan ninkii cuntadii soo sumeeyey isagoo cuntadii sumaysan isagoo sida ayuu yimid markuu yimid marka horeba way u tashteen inay dilaan rabeen way dileen dhag markay dileen maxaa soo haray saddexda buurood iyo nimankii iyo cuntada soo hartay waa gaajaysnaayeen niman oo musaafiriin ahaayeen oo safar dheer kusoo jireen waxay dhaheen war ninkii waa iska dilan waa dilan somaa alxamdulilah hadda labadeena soo harnay cuntadan aan horta aan cunno war saddexda buurood aan u cunno horta aan u cunto cunno saddexda buurood aan u cunto cunno oo aan maxay ay tahay aan u fahmaysana kadib ayaynu iskugu imaanaynaa cuntadii oo sumaysneed markay cuneen labadoodina meeshay ku dhinteen ninkii oo hore oo saddexdii buurood la siinayna xag meel u dhow jiifaa kii kaloo cuntada keenayna meeshaan u jiifaa oo isagoo miid ah labadii kalena meeshaan ay ku bar dhaceen iyagoo miid ah afartan nin intay jiifaan halkana buurta agtooda ay jiifaan saddexda buurood wax calfadaa la waayay meeshaan ay yaalaan nabiyullaahi ciise ayaa mar kale meesha soo mara haddana markaasaa wuxuu yidhi intuu saa u fiiriyo wuxuu yidhi oo la yaabay nimankii oo miid ah oo meesha wada daadsan maxay ahaydey buurihiiyo sidooda ah oo waxa qaata la la'ay ayaa intuu saa u fiiriyo wuxuu yidhi isagoo ardaydiis mar kale wata
أي وحكير الدنيا هكذا تفعل بأهلها فاحذروها يري الدنيا واتاسو يري إهل كذا سيدا سيوقشا داد جو كدكتون هذا يري الدنيا يسان إذن قال الدنيا أهل كذا سيدا يوقشا سيدا يودشا وعدو الدنيا كدكتون هذا يري إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وكل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الدنيا وعدو الدنيا وعدو مرك ولا ليال نفتيني وحن أدردار مايا إنه وحي يركع إلهي وكسي أتكوخن عدد الدنيا دانا آذان إسر راعنين مروك تاد فكر كادن يوسن وحبوك دلن meeshaan meel lagu raaxaysto ilaahay kamuusan dhigan soo xagarat maaha haddii aad murugaysan tahayna ilaahay ku aqoonsa alxamdulillaah dheh maxaa yeelay daartayda ma aha meel lagu sii nagaado ma aha ninka maanta haystay biri ma haysta murugta aan iska dayna wixii faa'iido ah oo kale aad qasida ka fahanteen soo qora allah idin barakeeye halkaas ay inoo joogta waa inuu video xiga haduu ilaahay yiraahdo hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam barakallahu fiikum